Tani waa sheeko cabsi badan. Goor habeen ah ayaan safray. Waxaa iga horreeyay jid aad u cabsi badan. Jidkaas waxa uu deegaan u yahay dad hororiin ah iyo dhiig miirato. Keligay ayaan ahay, waxa aan wataa baabuurkayga si aan u gaadho magaalo kale oo dantayda aan u soo fushado. Dabadeed jidka markii aan marayay waxa aan galay xaalad iyo jawi ka duwan tii hore aan ku jiray. Dhul kaymo iyo dhismayaal ay ka dhisan yihiin beri hore laga guuray ayaan galay. Dhismahaas oo ah mid qadiimi ah, markaad aragto waxaa ka muuqanaysa cabsi. Nasiib xumo, markii aan cabbaar soconayay gaadhigii wuxuu igaga dhex jabay kaynta iyo guryihii cidlada ahaa. Waxa ay samaynayaan sanqadh iyo guux aad u daran, isla mar ahaantaana naftaada cabsi siyaada ku abuuri doonta. Waan tagay si aan ula baxsado naftayda oona halis iiga soo gaadhin dadka halkaas ku nool ee horarka ah ee dadka dhiig miiranaya. Ma jirto cid hadda i caawinaysa gaadhigaygu markii uu iga jabay, waayo waa deegaan cidla iyo cabsi ay ku dheehan tahay. Kaliya hadda waxaa ii furan in aan badbaadiyo noloshayda iyo naftayda si aan u badbaado. Muddo markii aan soconay waxa aan la kulmay gabadh. Way soo jeesatay, waa ay salaantay, waxaa isku dayday inay ku qanciso inay tahay qof caadiya, balse waxa aan dareemay inay ka mid tahay dadka sida kooxaha gaargaarka u shaqaysta ee deegaanka degan ee dhiig miiratada ah. Waxay ku tidhi, marti ayaad maanta ii tahay, caawa ii tahay. Maya, waa aan ka diiday. Waxaa ku nool kaynta koox saaxiibadeed ah oo ay dadka safarka ah ee musaafiriinta halkaas ku safra ay si wada jir ah u hagardaameeyaan oo dhibaato ugu geystaan. Runtii hadda sidoo hore walwal iyo cabsigii aad bay igu badanayaan. Waxa aan arkaa lafo iyo dhardad, taas oo sabab u ah in aan walwalkaygu sii xoogaysto oo aan cabsado. Markastoo aad eegto deegaanka iyo jawiga uu ku sugan yahay iyo qofka dumarka ah, waxa aan sii dareemayay xaaladii hore ka duwan baan galayay. Waxa aan go'aan ku gaadhay in aan baxsado, balse waxa iigu wacday ama iigu yeedhay koox saaxiibadeed ah. Afduub iyo khasab ayaa laygu kaxeeyey, waxaana lay geeyey guri cabsi ay ka muuqato oo ay ku xidhan tahay gabadh hore oo musaafir ku ahay dariiqa oo ay qabsadeen. Kadibna waxaa noo bilaabatay xaalad iyo nolol cusub oo ka gedisan midii aan ku jirnay ahayd inaanu gaadhno magaalo kale. La soco qaybta labaad ee sheekada musaafirkii horar ku dhibatay.